haddaan ka hadlayno erey bixinta waddankeenu waa waddan burursan xataa dawlad manhin baa lagu doodi karaa laakiin waxa lagu wada joogo waa is ogolaansho waa waxa weeye dib u heshiisiin waa is aqbal waa isu jiidjiid waxa la diidan yahay waddankan waxa burburiyey waa dictatorship waa awooddo hal meel gacanta lagu dhigay waxa la diidan yahay marka waxay tahay waa in waddankan siyaasadiisu maanta gacan gasho dad baa ku doodaya maxay doorashadan uga duwan tahay doorashadii hore horta kaba dhig inay doorashadii hore khaldanayd oo maamulkii hore khalday yani anigu hadda yani scenario soo qaado ma dawlad baa ku doodi karta kuwii hore waxbay khaldeen anaguna aan khaladno waa immoral waa akhlaaq darro waa dood waa inay noqoto hadday shalay wax khaldeen wax ka fiican baan keenaynaa haddii shalay kalsoonidu hooseysay haddaan kalsooni fiican keenaynaa doodu marka waxaa weeye doodan dhan ee marna dadka u celinaysa maamulkii horaa wax khalday marna reer gacanta ku taagaysa marna aayado qur'aana 99 dalbanaysa waa arrin la yaab leh waay arrinta u baahan in laga wada hadlo waxay tahay doorasho xalaala la rabaa madaxweynaha waqtigiisa يعني waa la ixtiraamaya legitimacy iyo sharciyad buu haystaa waxna way qabteen waxna way khaldeen waxa laga hadli durbaanadan la garaacay meel hal iska dhigo doorasho waa siyaasadan Soomaaliya waa wada hadal iyo isu soo dhaweyn